أبار اللبية طبنكي وبركي دهورنمو xilligii la isu qabaqaabinayay salaada duhur ayaa qarax xoog leh uu gilgilay magaalada Laascaanood qaraxa kan oo ka dhacay dhanka bari ee magaalada Laascaanood guri uu ka deganaa halkaasi gudoomiyaha gobolka Sool Faarax Askar Xuseen oo xilligaasi watay gaari nooca Land Cruiser-ka loo yaqaan kuna sii jeeday gurigaasi isla markiiba waxa goobtaasi soo gaaray ciidanka booliska qaybihiisa kala gedisan iyagoo markaasi rasaas xoog leh kor u riday kuna kala baacinayay dadweynihii tirabeelka ah iyagu doonayay inay soo ogaadaan xogta waxa meesha ka dhacday qaraxa kan ayaa waxa uu ahaa sida ay sheegeen saraakiil dhanka ammaanka ka tirsan ee gobolka Sool inuu u ekaa markaasi nooca rumuudka lagu hago gudoomiyaha gobolka Sool Faarax Askar Xuseen iyo wiil u dhalay oo lagu magacaabo Maxamed Faarax Askar nin ka mid ah staafkiisa lagu magacaabo Axmed Barre Maxamuud ayaa la sheegay inay markaasi ku dhaawacmeen Daaduf Cabdi Xaaji oo ka tirsan staafka gudoomiyahana uu ku dhintay qof weynaya oo goobtaasi mareysay oo qarax la kulantay ayaa la sheegay in dhaawac uu ka soo gaaray goobtaasi maaha markii ugu horeysay oo qarax noocan oo kale uu ka dhaco magaalada Laascaanood waxaa saddexdii bilood ee ugu dambeysay magaalada Laascaanood ka jiray qaraxyo aad u tiro badan oo tiraba gaadhaya ilaa iyo 7 qarax waxa kale oo iyaguna jiray dilal qorshaysan oo lagu ugaarsanayay qaar ka tirsan saraakiisha dhanka ammaanka kaasi oo kii ugu dambeeyay toddobaadadii la soo dhaafay lagu kharajiyay sarkaalkii u qaabilsanaa dhanka hawlgelinta ciidanka booliska asikastoo ahaataba magaalada Laascaanood ayaa maanta xayiraada dhanka gaadiidka lagu soo rogay iyadoo guud ahaanba la joojiyay gaadiidka magaalada dhexdooda ka shaqeynayay iyo waliba gaadiidka soo galay iyo kan ka baxa magaalada Laascaanood waxa kale oo si ku meel gaar ah hawada uga maqan guud ahaanba itisaalaadkii isgaarsiinta ee magaaladu la lahayd caalamka intiisa kale mas'uuliyiinta maamulka oo kala xiriirna umuurtaasi ayay sheegeen in la hubinayo inuu san bixin dadkii ka dambeeyay qaraxa noocan oo kala dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa cabsi xoog leh ay markaasi la soo daristay maalmihii ugu dambeysay iyadoo dadkuna ay ka leexdaan dabooyinka ay yaalaan bacaha madow ee qashinka lagu qaado iyo daasadaha canaboodhaha markaasi lagu keeno kuwaasi oo noqday kuwa markaasi qaraxyada lagu soo guro